بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. nolosha adduunyada aan haysano ilaahay jalla wacalaa isaga inagu deeqay. habkaad u noolaan lahayna ilaahay jalla wacalaa isagaa kuu tilmaamo kuu sheegay. ciddaad ku dayan lahayd ee noloshaada aad kaga dayan lahaydna ilaahay baa kuu caddeeyey oo kuu tilmaamay. nolosha habka ilaahay jalla wacalaa uu ugu talagalay haddaan u dhaqanno, ciddii nolosha lagaga dayan lahaana haddii aan kaga dayanno, adduunyadan intaan joogno waxaan ku jiraynaa janno, oo nolosha adduunyadu waxay noo noqonaysaa janno ku sug bay noo noqonaysaa. haddii sida ilaahay jalla wacalaa nolosheenna aan u gudan lahayna uu inoo tilmaamay aan ka leexanno, ciddii nolosha aan kaga dayan lahayn cid aan ahayn oo kalena haddaan nolosheenna kaga dayanno, nolosha adduunyada aan ku nool nahay waxay nagu noqonaysaa cadaab yar bay noqonaysaa, cadaab. marka ciddaan ku dayanaynaa waa nebigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam. waa macallimka bashariyadda oo dhan ilaahay u soo diray weeyaan. khalqiga ilaahay jalla wacalaa uu abuurayna waa shakhsiga ugu khayr badan ee ugu fadli badan weeyaan. noloshiisana ilaahay baa tilmaamo uu yidhi: wa innaka la calaa khuluqin cadiim. abuur weyn baad ku sugan tahay baa nebigeenna lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam. mucjizaadka ugu waaweynaaye ilaahay nebi maxamed uu siiyeyna mucjizada ugu weyn waa qur'aanka. caaisha radia allaahu canha almu'miniin markii la weydiiyey lagu yidhi: nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam habdhaqankiisi nooga waran. waxay tidhi: qur-aanka miyaanad akhrin? maya, waan akhriyaa buu yidhi. markaa bay ku tidhi: kaana khuluquhu alqur'aan. haddaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aadii weydiisay, akhlaaqdiisu waxay ahayd qur'aan ayuu ahaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam. qur'aanka ayuu nebi maxamed turjumayey, uu ku turjumayey camali. marka raacitaanka isaga la raacayana waa guul iyo liibaan iyo ciz iyo sharaf weeyaan. khilaafka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadku ay khilaafaan waa khasaare weeyaan. adduunkan iyo aakhiro waa khasaare, waa nadaamo, waa khizi, waa cadaab weeyaan. shakhsi wuxuu ahaa ilaahay noloshiisa uu ka dhigay mutakaamil. xaalloo nebi maxamed noloshiisa ilaahay uga dhigay nolol dhammaystiran waa si loogu daydo. qul innamaa ana basharun midlukum yuuxaa ilay annamaa ilaahukum ilaahun waaxid faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada. bashar buu ahaa, malag ma ahayn. malag haddii lasoo diri lahaayoo ummad loo soo diri lahaa malag rasuulah, cidna ku dayan kari maysa malagga. laakiin ilaahay jalla wacalaa bini aadankan wuxuu u soo diray bashar. ambiyadu calayhim assalaam bashar bay haayeen, laakiin basharnimada waxaa u dheeraa iyaka waa maxay? yuuxaa ilaya, waxyiga ayaa ku soo degayey. sida ilaahay jalla wacalaa uu raalliga ka yahay inay bini aadanku u noolaadaanba iyaka lagu toosinayey. deedna markaasaa bini aadanka intiisa kaloo dhanna lagu lahaa nebigaa raaca oo ku dayda. adduunkan iyo aakhire haddaad nebigaa raacdaan waad ku daba liibaanaysaane.
walikulli qowmin haad baa ilaahay yidhi wain min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir walaqad bacahnaa fii kulli ummatin rasuula ilaahay baa qur-aanka inoogu sheego yidhi ummad walba waxaan u soo saarnay mid hanuuninaya siday adduunyada dusheeda u noolaan lahaayeen hadday ilaahay raalligelintiisa ay tahay ilaahay u raalligelin lahaayeen buu u tilmaamayaa habdhaqanka dhexdooda siday u dhaqmi lahaayeen buu u tilmaamayaa mujtamacay ku dhex nool yihiin siday ula dhaqmi lahaayeen buu u tilmaamayaa markaasaa ilaahay yidhi ummad adiga horta nebi allow manu soo diran ma keenin adduunkan ilaa haddaan keennay baa ilaahay yidhi waxaan u soo dirnay mid diga ah oo ilaahay cadaabkiisa uga digaya marka nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam nebiyada ilaahay basharka ahayd ee ilaahay bani aadanka uu soo diray inay ku daba daydaan ayuunbuu nebigeennuna ka mid ahaa bal wuxuu ahaa min afdali alambiyaa buu ahaa calayhi salaam ambiyada ilaahay soo saaree ka ugu fadli badan ee ugu khayr badan buu ahaa marka dhinac walba nebi maxamed wuxuu inoo yahay masal aan ku dayan karno haddii qofku uu yahay taajir ganacsade waxa kuu ah masal inaad ku dayatay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii aad tahay maaragtaane nin maalqabeen ah waxa masal kuu ah nebi maxamed inaad ku daba dayato calayhi salaatu wasalaam haddii qofku uu yahay faqiirka mithaalkiisu waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadduu yahay nin xaakimoo ummad taladeeda hayana waxa mithaalku ood ku daba dayanaysaa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii aad tahay khatiib iyo waacid iyo mucallim iyo mudaris ciddaad ku dayanaysaa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaad caabid doonaysa inaad noqotona ciddaad ku dayanaysa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhinac walba markii la eegay nolosha bini aadan uu ku nool yahay waxau nebi maxamed ahaa maalu laclaa buu ahaa maalu laclaa mithaalka ugu sarreeya lagu dayda buu ahaa ilaahay cabsidiisa hadday noqoto sidee buu nebigeennu ilaahay uga baqaayey shibta baa nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam waad cirowday oo timihii cirada ayaa nebi allow kugu bataa lagu yidhi markaa buu nebigu yidhi shayabatnii huudu wa akhawaatuhaa waxa ciradaa iga soo saaray buu nebigu yidhi waa suuratu huud iyo walaalaheed baa ciradaa iga soo saaray buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam suuratu huud wa akhawaatuhaa suuratu naba wa cama yatasaa'aluun oo waxay ka warramaysaa qiyaamahay ka warramaysaa ida shamsu kuwirad qiyaamaha ayay ka warramaysaa iyo siduu u dhici doono ida asamaa'u infatarat qiyaamaha iyo siduu u dhici doonay ka warramaysaa iyo arladiiyo samaawaadku isku bedeli doonaan markaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam xagga ilaahay cabsidiisana mithaalkaasa nebigeennu ka ahaa habeennada ka mida caaisha radia allaahu canha waxay tidhi wuxuu ahaa nebigu habeenkii salaataleylka ka u kaca buu ahaa ilaa sare joogga uu nebigu joogaayo salaadda uu u taagan yahay dheerideeda lugaha intay bararaan bay gorori jireen deedna markaasaan ku yidhi yaa rasuula allah naftaada maxaa sidan ugu kellifaysaa ilaahay adiga macsuum buu kaa yeelo dembigii horena waa lagaa dhaafay dembigii dambena waa lagaa ilaaliye markaa buu nebigu ku yidhi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura ibnu mascuud allaha raalli ka noqday ayaa habeen wuxuu yidhi nebiga ayaan arkay oo salaataleylkii tukanaya deedna markaasaa nebiga ku daba xidhay salaataleylkii uu dheereeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay rakacad keliyuu nebigeennu ku tukanaya suuratu lbaqara iyo aala cimraan iyo suurata annisaa waa nebi macsuuma oo ilaahay dembigii hore iyo dembigii dambe uu ka ilaaliyey ayaa haddana habeenkii sidaa ilaahay u caabudaya markaasuu ibnu mascuud wuxuu yidhi waxaan ku hamiyey inaan wax xun aan sameeyo markaasaa lagu yidhi adigoo nebi maxamed gadaashiisa taaganoo salaadda ku daba tukanaya waxa xuneed ku hamiday inaad samaysay muxuu ahaa ibnu mascuudow wuxuu yidhi salaadda inaan ka baxoon iska fadhiistaan ku hamiyey buu yidhi sida nebigu ilaahay uga baqaayo eeg haddaad doona inaad noqoto mid ilaahay ka baqaaya oo caabida haddaad doona inaad noqoto asagaa ku ah maal wallaahi inaanan gaadhayn innii la akhshaakum lilaahi wa atqaakum lahu saddexdii nin ee guryihii nebiga intay tegeen waraystay sida nebigu habeenkii uu rabbigii ula munaajoodo markii loo sheegay ayay yidhaahdeen mid waa kii yidhi
waxaa maanta laga bilaabaa iga ballana inaanan guursan oo dumarkaba waan ka dheeraanayaa midna wuxuu yidhi waxaa iga ballana inaanan maaragtaane soomba aan u kala saarin midna wuxuu yidhi maaragtaane salaataleyl habeenkii u kala saari maayo maba seexanayaba saddexdii markii nebiga looga warramay casiimadii iyo go'aanka ay qaateen intuu nebigu u yimiday buu ku yidhi ragga sidaa iyo sidaa ku qowliya mayninka markaa bay yidhaahdeen haa markaa buu nebigu yidhi dhegaysta haddaba anaa inigu alla ka cabsi badan iniguna alla kayaa badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam anoo habeenkiina waa la arki buu nebigu yidhi anoo hurda waan seexan waanan tukan waanan soomi waanan afuri waa soonka sunnaha anoo soomana waa la arki buu nebigu yidhi maalin anigoo iska afurayana waa la arki dumarkana waan guursan buu nebigu yidhi faman ragiba can sunnatii falaysa minii noloshaydii iyo shareecadaydii iyo diintaydii iyo hadigaygii wakaa qofka iska nacana ummaddayda ka mid maaha buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innii la akhshaakum lilaahi wa atqaakum lahu xagga cibaadada ilaahay iyo cabsida ilaahay haddaad doonto inaad cid ku dayanayso isagaa ku dayo xagga geesinimada hadday noqotona shujaac buu ahaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina habeen ayaa dhawaq baa meel ka soo yeedhay saxaabadu hubkii intay qaateen bay meeshii ku yaaceen waa meel mugdiyo oo madow weeyaan shakhsigii ugu horreeyey ee ka hor yimid saxaabada ee ku yidhi meesha anigaa hortiin tegey oo waxba kama dhicine iska seexda shakhsigii yidhi nebiyullaahi moxamed buu ahaa calayhi salaatu wasalaam kunnaa idaa xamaya alwatiisu nattaqii birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bay yidhahdeen saxaabadu dagaalka marka aan gallo ee dagaalku nagu dheeraado nagu kululaadee dhiigguna uu daato shakhsiga aan dabadiisa dhufayska ka dhiganaynay ee gadaal aan ka maraynay wuxuu ahaa bay yidhahdeen asxaabtu nebiyullaahi moxamed buu ahaa calayhi salaatu wasalaam shujaac geesinimo haddaad doonto nebigu geesi buu ahaa waad arkaysaa zamankan dadka dagaallada markay ciidamo dagaal qaadayaan ninka abbaanduulaha ee ciidanka wata gadaashooduu fadhiistaa isagu laakiin ma dhacay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maadaamuu ahaa mucallim ummadda wax baraaya oo dhinac walba ummadda u raba inuu u noqdo masal lagu daydo asxaabtu waxay yidhaahdeen dagaalku markuu kululaadu adkaado isaga gadaashiisaan maraynay yidhahdeen asxaabadu fii ghaswati xunayn maalintaa saxaabada tiradooda 12 kun baa lagu qiyaasaa dad badanoo mu'allafata alquluub oo maka markii la furtay soo islaamay oo iimaankoogu weli qalbiga uunan degin oo judud islaamnimada ku amaaragtaanee judud ayaa markaa dagaalka nebiga la galay tirada gaalada mushrikiintu maalintaa way yareen ciidanka gaaladu tiradoodu way ka yareen tirada muslimiinta qaar muslimiinta ka mida waxay yidhaahdeen maanta tiro badni annaka lanooga guulaysan maaye gaalada annagaa ka tiro badanoo maanta annagaa ka guulaysanayna tiraday eegeena tayada kuma xisaabtamaynin waayo ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka markay dagaalamayaan gaaladiiyo muslimiintu markay dagaalamayaan cidda tirada badan la guusha ma raacayso cidda hubka tayada fiican lena guushu ma raacdee cidda ilaahay ku xidhan bay guushu raacdaa mar walba in yansurukum allahu falaa ghaaliba lakum wain yakhdulkum faman da aladii yansurukum min bacdihi wa cala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun haddii ilaahay uu inii gargaaro ilaahay ni guuleeyo oo guusha ilaahay uu ini siiyo cid inaga qaalib noqonaysaa ma jirta baa ilaahay yidhi haddii ilaahay garabkiinna uu ka baxo ini dulleeyana isaga dabadi cid inii kaalmaynaysaa ma jirta baa ilaahay yidhi wa cala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun dadka iimaanka sheeganaya mu'miniintu yaynan awooddooda tala saaran yayna cuddadooda tala saaran yayna tiradooda tala saaran waa inay talada ilaahay u dhiibtaan ay yidhaahdaan waxay guushu nagu raacaysaa waa hadduu ilaahay noo gargaaro ilaahayna jalla wacalaa dadka tiradooda iyo tayadooda ilaahay tiradooda eegi maaye dadka sida ilaahay ugu xidhan yihiin baa ilaahay dadka ugu gargaaraa tacalluqa ilaahay ay la leeyihiin ayaa ilaahay bini aadamka ku qiimayne bini aadamku waxa ay wataan asbaabtan khaarijigay walwaalanayaan ilaahay bini aadamka kuma qiimaynaye ilaahay bini aadamka waxa uu ku qiimeeyaa tacalluqa ilaahay ay la leeyihiin lidaalika maalintaa dad jududa oo islaamnimada jadiid ku ah ayaa saxaabada tirada u buuxinayey cadadkii markay isku eegeen ay arkeen inay gaalada ayaku ka tiro badan yihiin ayay yidhaahdeen maanta tiro annaka ayaa gaalada ka tiro badanoo guushu maanta annakayna raacaysaa judhigii horraysaba muslimiintii baa la jebiyoo laga adkaaday
ilaa nimankii acraabta ee mushrikiintu ay yidhaahdeen ma haddii uu nebi yahay baa ciidankiisa la jebin lahaa markaasaa nebigu istaagay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ana nebiyun laa kadib ana ibnu cabdilmuطalib buu nebigu yidhi anigu nebi baan ahay oo nebinimadayda been ka sheegi maayo anugu ina cabdilmuطalib baan ahay buu nebigu yidhi beenna ma sheegaayo markaa buu nebigu la hadlay adeerkii cabbaas wuxuu yidhi cabbaasoo waxaad iigu yeedhaa ansaar iigu yeedh buu yidhi ansaar cabbaas ibnu cabdilmuطalibna 8 mayl baa dhawaaqiisa laga maqli jiray baa la yidhi oo dhowr iyo 10 kilomitir baa laga maqli jiray qayladiisa markaasuu yidhi yaa lalansaar aawe ansaar raggii nebiga la mubaayacooday inay dhiiggooga iyo dheecaankooga iyo naftooda nebiga ay ku difaacayaan maanta mee ansaar allaha raalli ka noqdee sida sacu weyshiisa ugu soo gadoodo baa la yidhi ayay maalintaa nebiga ugu soo gadoodeenay nebiga agtiisa ugu soo duumeen markiiba keligii buu nebigu halkaa ku hadhay isagiiyo cabbaas iyo dhowr nin oo muhaajiriina ayaa ciidankii dhannaa ee mushrikiinta u jilib dhigtoo tidhi uu nebigu yidhi uu dhaqaaqi waaye nebigu wuxuu yidhi nebi ilaahay soo diray baanoo nebinimadeeda been ka sheegi maayo ina cabdilmuطalibna waa nahay buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam geesinimada haddaad eegto shaksi ka geesinimo badan nebi maxamed adduunka ma soo marin deeqsinimo haddaad eegtana cid nebi maxamed ka deeqsasan adduunka ma soo marin khaswaddaas khaswatu xunayn xoolihii markii mushrikiinta la jebiyey xoolihii gaalada laga soo qaaday ayuu nebigu sidaa u eegay aqrac binu xaabis buu nebigu ku yidhi mee waa kan 100 halaadoo geela siiya buu nebigu ku yidhi cuyaynata binu xusnin mee way kan 200 halaadoo geela isagana siiya buu rasuulku yidhi markaa buu nebigu saxaabadii buu fiiriyey safwaan binu umaya oo markaa weli aanan islaamin khaswaddaa nebigu la socday baa la yidhi diin iyo caqiidanimo nebiga uma soo raacine waxau nebiga u soo raacay tolnimuu nebiga u soo raacay markaa buu nebigu eegay safwaan binu umaya wuxuu arkaa isagiioo xoolihii gaalada laga soo qaatay 2 buro dhexdooda xoolo buuxiyey oo geelii lo'dii adhigii waxba ka maqnayn wixii mawaashin la odhan jiray isha intuu la raacay kolba dhinac sidaa u eegayoo la yaaban niyaddana ku leh talow xoolaha maad heshida ayaa ku siin lahaa ayuu nebigu ku yidhi yaa abaa wahab markaasuu yidhi labayka yaa muxamed markaa buu nebigu ku yidhi ayucjibuka haadaa labadaa buurood xoolaha dhex socda haddii lagu siin lahaa bal ka warran fiicnayda mase heli karaa markaa buu nebigu ku yidhi huwa laka wamaa fiihi labadaa buurood dhexdooda xoolaha socda cidna kuguma haysatee adigaa iskale kaxaysa buu ka yidhi safwaan binu umaya sidaa intuu nebiga u soo eego wejigiisii iftiin baa ka baxay nebiga wejigiisa iftiin baa ka baxaya hal mar keliya intuu yidhi maa taabat nafsu axadin bimidli haada ilaa nafsu nebiyin naf sidaa wax u bixin kartaa ma jirto hadday jirtana naftaa nebi uunbay ku jirtaa ashhadu an laa ilaaha ila allah adiga hortaada waxaan ku qirayaa dadka hortoodana ka markhaati kacayaa dadkana aan u sheegayaa ilaa xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa adiga ilaa ilaahay mooyaane adiguna nebi rasuula inaad tahay baan halkaa ka markhaati kacayaa buu yidhi salaaddii nebigu hortiisa uu ku tukanayay kuma islaamin baa la yidhi safwaan binu umaya laanna muddo dhan buu nebiga la jooguu ag fadhiisanayay isagoo mushrika uu nebigu soo dhowaynayey oo markii salaadda la tukanayana maka lagu tukanayana intuu nebigu horay u baxo ayuu safwaan binu umaya gadaal u baxayuu nebigu iyo saxaabadu siday u cibaadaysanayaan buu fiirinayey kayfiyaddii nebigu u tukanayay kuma islaamin waxa uu ku islaamoo ninkaa bedishay deeqsinnimadii nebi maxamed markuu arkay buu ku islaamay diinta islaamka deeqsi buu ahaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana qofalihii qofkii ilaahay la kulankiisa rajaynaya aakhirana ku xisaabtamaya cidda noloshaada macallim aad uga dhiganaysa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii nebi maxamed cid isaga aanan ahayn aad ku dayataa noloshaadii adigaa god ku riday ogow madiinata almunawar uu nebigu yimiday wuxuu arkay yahuuddii magaalada madiina kula noolayd oo cashuuraa soomaysa markaa buu nebigu ku yidhi maalinkanay soomayaan waa maxay waa maalinkii ilaahay nebi muuse calayhi salaam
uu badbaadiyey ee fircoonna laga halaagay weeyaan markaa muuse ayaa soomay shukran lirabbihi buu u soomay reer bani israa'iilna waa cibaadadooda weeyaanoo way soomaan markaa buu nebigu saxaabadiisii ku yidhi annagaa nebi muuse uga xaq leh sooma buu rasuulku yidhi waa 10ka cashuuro weeyaan markay saxaabadu ay soomeen ayuu nebigu yidhi kal dambe haddii ilaahay i gaadhsiiyana taasuuca sagaalaadka ayaan ku darayaa oo maxaan ugu darayaa sagaalaadka yahuudda ayaan khilaafayaa weeyaan xaggii cibaadada ayuu nebigu yahuudda ku khilaafay maanta mujtamaca muslimiinta badana adduunyada ku noolna iska daa cibaade bal dhaqankiiba maanta ay ku dayanayaan maqduubi calayhim iyo waladaalliin bay ku dayanayaan salaadda markaad tukanaysidna ayuhalmuslim waxaad leedahay ilaahow aniga dariiqa waxaad marinaysaa kuwii dushooda aad u nicmaysa dariiqooga imari kuwii loo nicmeeyey waa dadkii ilaahay doortay alambiyaa calayhim assalaam waasidiiqiina waashuhadaa waasaalixiin ee ilaahow dadkaad u cadhootay iyo kuwii baadiyoobee dariiqa xagka ka leexday ilaahow jidkooga aniga hay marin baad ku ducaysanaysaa laakiin mujtamaca muslimiinta maanta dhaqankooga eeg xagga salaadda markay noqoto cibaado markay noqotona masaajidka dhexdeeda markaan sunno ama salaad farada tukanayno waxaan ku qowlaynaa ilaahow dariiqa mustaqiimka imari dariiqii aad addoommaha aad ugu nicmaysay aad marisay imari akhlaaq markay noqoto iyo dhaqanna maanta mujtamaceennu waxay ku dayanayaan dadkii ilaahay u cadhooday iyo dadkii baadiyoobay baan dhaqankooga maanta aan qaadanaynaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu khilaafay cibaadadii buu ku khilaafay cibaadadii innaguna maanta mujtamaca muslimka meeshay doonaanba ha joogaane caadadii bay maanta kaga dayanayaan yahuud iyo nasaara marka muslim ayuhalmuslim ciddaad ku dayanaysaa waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam low kaana muusaa xayan lamaa wasacahu ila itibaacii baa nebigu yidhi haddii nebi muuse adduunyada maanta uu joogi lahaa shareecadda isaga loo soo dhiibay ma raaceene tayada unbuu raaci lahaa buu rasuulku yidhi laanna miihaaq baa ilaahay ka qaaday ambiyada dhammaan jamiica alambiya nebi kastoo la soo diray risaalad marka loo soo dhiibaayo waxaa ballan laga qaaday adoo risaaladdaa haysta haddii nebi maxamed adduunka uu yimaado inaad isaga rumaynood raaci ballan ii qaad baa ilaahay yidhi markaasaa nebi walba ilaahay hortii uu ka marqaaday uu ka markhaati kacay haddii isagoo adduunka jooga nebi maxamed uu yimaaduu shareecadda la yimaado islaamka inuu nebi walba nebi maxamed raacayo waa ballan nebi walba ilaahay uu la galo ka qaaday weeyaan nebiyadii ay ballan qaadeen inay raacayaan ay ilaahay hortii ka ballan qaadeen inay ku dayanayaan ayaa innakana ilaahay nooga dhiga imaam ilaahay nooga dhiga qudwo inaan ku dayanno falidaalika natacallam waa inaan barannaa noloshii nebigeenna calayhi salaatu wassalaam dulqaadkiisu sidee buu ahaa sidee nebigeennu ummadda ugu dulqaadanayey xagga diraasadda markay noqoto tacliinta masaajidkiisiibuu nin acraabiya cawradiisii intuu la soo baxay buu ku kaadiyey saxaabadu ninkii way ku yaaceen walaakiin nebigu waa ka riday calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dacuuhu war daaya buu yidhi war daaya kaadida ha ku kala joojinina buu yidhi daaya halkuu ku kaadiyey ordo ninkuu biyo ka badan ka shuba buu nebigu yidhi ku shuba masaajidkuna bataax buu iska ahaa jagac isagii buu nebigu u yeedhay ninkii aadaabtii maskiidku u sheegay iyo kiina uu tilmaamo wuxuu ku yidhi ordoo meeshuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba fa innamaa bucidtum muyasiriina walam tubcaduu mucasiriin buu nebigu yidhi inaad ummadda xaqa u dhibrisaan baa laynii keenee inaad ummadda xaqa aad ku adkaysaan markaad u gudbinaysaan adduunyada layniima keenin buu rasuulku yidhi isagiina uu yeedho wuxuu sheegay masaajidku ahamiyadda uu leeyahay waa meel loo dhisay ilaahay in lagu caabudo in salaadda lagu tukado in qur-aanka lagu akhristo in diinta lagu barto markaasuu u sheeguu yidhi waa masaajid aqalkan ilaahay baa iska leh waa meel daahira weeyaan deedna markaasuu saxaabigii nebiga ammaani jiray markii dambe mucallim buu ahaa kayfiyaddaasuu nebigu ummadda wax u baraayey sala allahu calayh wasalam khudbadda mambarka isagoo khudbadaynaya nin acraabiya isdhex taagay dadka dhexdii oo yidhi rajulun ghariib baan ahay jaa'a yas'alu can diinihi laa yadri maa diinuhu nin ghariiba ayaanaho diinta islaamka ku cusub oo u yimidee diintiisa islaamka inuu wax kaa weyddiiyo khudbaddii jumcada intuu nebigu joojiyey ayuu ka dhaadhaco ninkii halkiibuu ugu tegey kursigii baa la daba qaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam
mas'alad allii mas'aladuu raba inuu nebiga weyddiiye markuu weyddiiyey uu u dhammaystiray ayuu nebigu soo noqdo khudbaddii buu nebigu dhammaystiray waa mucallim haddaad mucallim tahayna mahalkaagu waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mahalulaclaa ciddaad ku dayanayso waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaad qaa'id ummadeed aad tahayna u fiirsa dulqaadka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin reer baadiyo acraabiya ayaa nebigeennoo saxaabadiisu hareeraha ka socdaan gadaal intuu kaga yimiday ayuu cimaamaddii nebiga go'i nebiga hunguriga kaga qabtay markaasuu weliba hadal adag ku yidhi xoolaha ilaahay agtaada uu dhigay adiguna ma lihid awowgaa cabdulmuطalibna male nasiibuu ka yidhi intuu nebigu qoslay buu ku yidhi siiya buuha 100 halaadoo geela isagana la siiyey xaakim haddaad cid ku ummad taladeeda aad haysid ama magaalo xakum ama waddan xakum ama tuulo xakum ama tala reereed hay cidda aad ku dayanaysa waa nebi maxamed waa mahalulaclaa dhinac walba waxa uu nebigu bashariyadda u yahay mihaalkii u sarreeyey lagu dayanayey inaad ku daba liibaanta mooyaane ku daba khasaari maysid abadan abadan limaada laanna ilaahay baa yidhi wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad nebi maxamed aad raacdaan ood ku dayataan waad hanuunteen baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala saxaabadu ninka inay gacan ula tegaan bay ku hamiyeen walaakiin nebigu uu dhoolla caddeeyey intuu qoslay saxaabadii cadhadii buu ka baabi'inayaa markaa buu nebigu saa intuu ege buu qoslo wuxuu ku yidhi war waxa uu doona siiya buu nebigu yidhi kaxeeyo baytalmaalka geeyo oo siiya buu yidhi haniimadii gaalada laga soo qaaday buu nebigu sidaa u qaybinayey kan intaas siiya kan intaas siiya kan intaas siiya nin acraabiyo reer baadiyaa ayaa saxaabada isdhex taagoo qayliyoo yidhi wallaahi qaybtan la qaybiyey lagumana cadaalad falin ilaahay dartiina looma bixin buu yidhi hadalkaa cidda lagu leeyahay waayo waa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam bal u fiirso dulqaadka nebigeenna eeg siduu nebigu ummadda iskugu waday eeg qismaddan la qaybiyey laguma cadaalad samaynin ilaahay dartiina loogama jeedo hadalkaa ninka lagu leeyahay maaha shakhsi kale waa nebi maxamed markaa cabdulaahi bni mascuud radia allaahu canhu ayaa maqlaayey markaasuu nebiga u tegay calayhi salaatu wasalaam markaa buu nebiga u sheegay markaabaa wejigii nebiga ayaa markiiba doorsomoo isbeddelay markaasaa nebigu yidhi hadday ilaahay nebi maxamed cadaaladdu xaggooda ka iman ayaa kaloo cadaalad samayn buu nebigu yidhi soo qabtoo ninkaa xidha nebigu ma odhan isbarbar dhig madaxda zamankan ummadda taladeeda haysa waddankay dooni ha joogaan iyo qaa'idulacdam qaa'idkii weynaaya ummadda hoggaankayga ilaahay noogu dhiibay halkay kala joogaan bal isku eg saasuu eegay nebigu sal alla alay slam markaasuu yidhi ilaahayo nebi maxamed hadday iyaka cadaaladdu xaggooda ka iman ayaa kaloo cadaalad samayn kara buu rasuulku yidhi markaa buu nebigu yidhi walaalkay muuse calayhi salaam intaa in ka badanba waa la dhibo uu sabray buu rasuulku yidhi laanna qur-aankaa nebiga qabanaayey qur'aanku waa usuulu dacwa usuusha dacwadda qur-aankaa laga bartaa qofka muuminka waxaa xakamaynaya waa qur-aanka weeyaan haddaad cadhooto qur-aanka ku noqo haddii lagugu gafo qur-aanka ku noqo haddaad talo ummadeed kaa guracanto qur-aanka ku noqo waa inaad noqotaa marjacaaga waa inuu ahaadaa qur'aanka limaada lianna qur-aanku waa kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala cadaalad dhammaystiran baa qur-aanka ku dhammaystiran waa maxkamad cadaalad oo dhammaystiran markaa buu nebigu uhi walaalkay muuse calayhi salaam waa nebi muuse intaa in ka badan ba isagana waa la dhibo uu iska sabray dee anigana waa sabri bay ka dhigan tahay markaa wax kale iima yaallo sabirunbaa ii yaallo weeyaan sabir badana dulqaad badana nebigeennu calayhi salaatu wasalaam dulqaad mas-uul isagoo ummad taladeeda haya ka daciifka ka qawiga ka ilaahay adeecaya ka cibaadadiisu naaqis ka tahay ka xaqa ilaahay ilaalinaya ka xaqa bini aadanka weli aan dhammaystirin ka akhlaaqda wanaagsanne ka akhlaaqdiisu ay liidato ka diinta ku fiican ka diinta weli ku dhaqankayga ku fiicnayn intaba nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu isku waday ra'iisu lmunaafiqiin cabdullaahi bnu ubaya bnu salool
inankiisii baa nebigeenna u yimid calayhi salaatu wasalaam markii laga soo noqday ghaswat alaxsaab markaasuu yidhi yaa rasuul allah aabbahay munaafiqnimadiisii caddaatay waxaan ka baqayaa aabbahay nin muslima intuu dilo ninkaa muslimka ee saxaabiga aabbahay dilay inay anigana gacan igaga siibato sidaa naar ku galaan ka baqayaa aabbahay kurkiisa anigaa soo goynoo kuu keeniye igu fasax buu ka yidhi aabbihiina waa ra'iisulmunaafiqiin weeyaan markaa buu nebigu yidhi may kugu fasaxi maayo buu ka yidhi waayo la odhan maayo saxaabi baa munaafiq dila la odhan maayo lagu sheekayn maaye waxaa lagu sheekayn saxaabadii muxamed baa islaynayso kurka iska jaraysa adigana waa aabbaha suxbaddiisa wanaaji buu ka yidhi u samafal annagana sharkiisa ilaahay baa naga kaafin doona buu rasuulku ku yidhi muddo yar kadib ninkaa uu dhiman doonaa ra'iisulmunaafiqiin dadna markuu dhinto saxaabigii uu dhalay baa nebiga u iman doona wiilkiisa cabdullaahi baa iman doona oo nebiga ku odhan doona iigu tuko markaa cumar binu khadaab baa ku odhan doona yaa rasuulallah munaafiqa ha ku tukane daac ila salaata aljanaasaha qofka lagu tukanayo waa ducayn qofka loo ducaynaya weeyaan markaa buu nebigu ku yidhi cumar waan ku tukanaya iska daa buu ka yidhi markaa buu yidhi yaa rasuul allah ma ninka munaafiqnimadiisu ay caddahay qur-aankuna uu fadeexadeeyey maad ku tukanaysaa markaa buu yidhi yaa cumar aniga khiyaar baa ilaahay ii siiyo waa kii yidhi istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum 70 maratan falan yakfir allaahu lahum khiyaar baa ilaahay aniga ii siiyo waa ka ilaahay igu leh haddaad doonta u dembi dhaaf dalab oo u duceey weeyaan haddaad doontana haba u ducayn haddaad kuwaa 70 jeer ilaahay aad dembi dhaaf u weyddiisana loo dembi dhaafi maayo baa laygu yidhiye khiyaar baa laysiiyo khiyaarkaa horreeye han ku tukadee cumarow iska kaydaa buu nebigu ku yidhi nebigu waa og yahay ninkaa salaadda nebi maxamed uu ku tukanayo inaysan waxba u taraynin waa og yahay laakiin nebigu ayuu ilaalinayaa wiilkiisa saxaabiga ee jaliilka ee dharaariya habeen nebiga ag taagan ee diinta islaamka difaaceega dhiiggiisa ula diyaara inuu ku bixiyo kaabuu nebigu qalbigiisa dhowrayaa markaa nebigu ummaddiisa uu isku wadaa uu ha ku tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana markaasuu yidhi yaa rasuul allah qabrigiisana noo raaco balkaalayo haddana halkaana nala dul joogso lacalla laga yaabaa duljooggaagaa ilaahay inuugu naxariista aabbahaye markaasuu raacay rasuulku cumar binu khadaab baa nebiga gacanta hor dhigoo yidhi yaa rasuul allah nimanka munaafiqiinta qabuurooga ha tegina ka joog haddaba markaa buu nebigu gacantii cumar iska qaado wuxuu yidhi cumarow khiyaar baa aniga ilaahay ii siiye khiyaarka ha iga qaadine iska kaydaa buu nebigu ka yidhi cumarow uu tegey qabrigiina nebigu waa kor taagay waa u duceeyey uu ka soo noqday soo noqodku soo noqdaa nebiga qur-aanka ku soo degaaya oo la leeyahay walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi innahum kafaruu billaahi wa birasuulihi wamaatuu wahum faasiquuna baa lagu yidhi maanta wixii ka dambaysa baa nebiga lagu yidhi kuwaa munaafiqiinta salaadna kuma tukan kartid oo uma ducayn kartid qabuurtoodana haskor taagin baa nebiga lagu yidhi aayaadka qur'aankee soo degay iyo waxaa iswaafaqay tala bixintii cumar binu khadaab uu soo jeediyey maalinka intii ka dambaysay baa la yidhi cumar binu khadaab marka talada uu nebigu saxaabada uu shuurada uu tala gelinayo talada cumar binu khadaab uu dhiibtaa nebigu si gaaruu iskaga eegi jiray baa la yidhi limaada imaam suyuuطi raximahullah kitaabu taariikh alkhulafaa wuxuu ku sheegay 15 tala bixin oo cumar uu ummadda u soo jeediyey tala ummadeed oo nebi maxamed uu u dhiibtay iyo qur'aankaa iswaafaqay baa lagu yidhi xijaabkaa ka mid a maqaami ibraahim baa ka mid a aayaadka munaafiqiinta ka warramaya ayaa ka mid a 15 talo oo cumar uu nebiga u soo jeediyey iyo qur'aankaa iswaafaqay baa la yidhi intaa intay ka dambaysa hadduu cumar tala dhiibto nebigu talada cumar si gaaruu isha ugu hayn jiray baa la yidhi markaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu nebigu ummaddiisa iskugu waday xagga cishradana cishradu waa maxay sidee nebigu reerihiisa ula dhaqmaaye ilaa shakhsi mutakaamil u ahaa nebi maxameda ilaahay baa yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim jaanib keliya kuma sifoobin xagga cibaadada waa maal xagga akhlaaqda waa maal xagga maamulka waa maal xagga shujaacadda waa maal xagga naxariista waa maal
xagga tarbiyadda awlaadda waa maal xagga maaragtaanee deeqsinimada waa maal xagga zuhdiga waa maal xagga mucaasharada reeraha siduu loola dhaqmo waa maal maal waa maxay waa tusaale caaisha radia allaahu canha waa la weydiiyey aqalladiisa nebigu markuu joogo muxuu qaban jiray noo sheeg baa lagu yidhi markaasay tidhi umma almu'miniin caaisha radia allaahu canha waxay tidhi aqalka markuu nebigu joogo wuxuu qaban jiray maynii sheegaa kabta isaga ka gooday buu nebigu iska tolan jiray marada ka dildillaacantina nebigu uu karkaran jiray neefkiisana uu maalan jiray aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanayna nebigu waa noo qaban jiray tidhi isagaa noo adeegi jiray adeeg laakiin salaadda hadday gaadho nebigu salaaddu u baxaya calayhi salaatu wassalaam xuquuqda eheladiisa uu ilaalin jiray bal isagaa inoo sheegoo yidhi nafaqada dirhamka aad ilaahay diinkiisa aad ku nafaqaynayso iyo dirhamka maaragtaanay addoon aad ku xoraynayso iyo dirhamka maaragtaanay miskiin aad siinaysid iyo dirhamka ehelkaaga aad ku nafaqaynaysid waxaa ilaahay agtiisa ajar badan buu nebigu yidhi ka aad reerkaaga ku nafaqaynaysa ajar badan buu rasuulku yidhi ka reerkaaga aad siinaysid qadra alxaaja markaasuu akhlaaq buu reerihiisa ku maamulaya akhlaaq wanaagsan uu iman jiray aqalka caaisha wax la cuna ma yaalaan caaisha maya bay odhan jirtay markaa buu odhan jiray waa iska soomanaha iska daa xabsi uu tegi jiray wax la cuna ma yaallaan saaka maya waxa ma yaallaan rasuul allow waa soomanaha iska daa buu odhan jiray cunto haddii la siiyey cajabisana uu cuni jiray hadday cajab gelin weydana nebigu ma ceebayn inuu ka tegi jiray wixii cajabiye wixii loo sameeyo haddii shaygaa uu cajabiyo ma odhanayn haddii shayga la sameeyona ma odhanayn maxaa sidan u samayseen shayga aan loo samayna ma odhanayn maxaasaa u samayn weydeen ma dagaalamayn ma cadhoonayn hal mar bay dumarkiisu nebiga ay intay isku yimaadeen yidhaahdeen muu nebigu biilna siiyo masaariif waatan dowladda islaamku dhaqaalo yeelatee wuu ka hijrooday nebigu dumarkiisii jibriil baa u yimid oo waxaa lagu yidhi reerahaagii adduunyaa soo gasho adduunyay ka fikireene ka dheerow baa lagu yidhi 22 cishuu nebigu maskiidka iska galay baa la yidhi ilaa magaaladii madiine war waxaa galay la leeyahay nebigu xaasaskiisii uu furay cumar baa socday inantiisii xabsu u tegey aabba nebigu muu ku fura maya nama furin maxaad samayseen wallaahi waxaan samaynoo dembi weyn annagu ma garanayne waan isku imanno waxaan soo hadal qaadno nidhi waatan dowladda islaamku dhaqaalo yeelatee muu nebigu masaariif inoo qor haddee toolan bal masaariif yar oo biila abubakar baa socday inantiisii caayishu u tegey maa lagu furay may layma furin aabbo dee maxaa dhacay nebigu wuu niga hijroodaan maqallee waxay tidhi nebi allow aabbo dembi kale ma samayne waxaan isnidhi keliya haddaan haweenkii nebiga nahay dowladda islaamku waata dhaqaalo yeelatee xoogaha masaariifa nebigu meel haynii saaro ma intaasunba haa waa intaa deedna markaasaa nebiga aayadahan ku yaalla suurat alaxzaab aayaatu takhyiir ee kala doorashada ee la leeyahay nebi maxamed ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro dhinaca iyo adduunyadiiyo ziinadeeda oo dhinaca kala doorta aayadaha ka warramaya kala doorashada kala doorbidashada ayaa marka nebigeenna ku soo degay calayhi salaatu wasalaam waxau nebigu ka bilaabay xaasaskiisa tii ugu jeclaa buu nebigu ka bilaabay tuma umma almu'miniin caaisha radia allaahu canha taasuu nebigu reerihiisa ugu jeclaa camar binu caas baa weydiiyey nebiga su'aashaas camar binu caas baa saxaabada ku odhan jiray saxaabada nebi maxamed anuu iigu jecel yahay ku salliya rasuulka sala allahu alayh wasalam markaasaa lagu yidhi war ka daa may anuu iigu jecel yahay war ka daa may waan weydiin salaaddii markii laga baxay buu camar istaagay wuxu uhi yaa rasuula allah dadka ayaad ugu jeceshahay ii sheeg markaasuu nebigu yidhi caaishaan ugu jecelahay buu yidhi innaka ma dhici kartaa ninku inuu ragga horteeda ku yidhahdo waanu dumarkayga islaantaasaan ugu jecelahay waad ka xishoon laakiin ceeb maaha nebigu uu sheegay mujtamacuu ka hor sheego wuxuu yidhi dadka waxaan ugu jecelahay caaisha markaasuu yidhi maya dumarkaaga maaha ragga
markaasuu yidhi aabbaheed waa kuma abubakar markaasuu haddana markaasuu yidhi cumar marka camar binu caas saxaabadii buu eego waan iska aamusay buu yidhi maxaad u aamustaa lagu yidhi wuxuu yidhi waxaan ka baqay inuu nebigu iga dhiga koogu dambeeyo buu yidhi marka aamuskaa la ii qaatay buu yidhi uu iska aamusay marka camar lidaalika nebigu caaishu xaasaskiisa ugu jeclaa mas'aladdaana kala doorashada nebigu waxau ka bilaabay cidduu xaasaskiisa ugu jeclaa wuxuu yidhi caaisha soo fadhiiso aayadahan qur-aankaa dusheeda ku soo degay waa kala doorbidasho ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jannada oo dhinaca kalena adduunyadiiyo zinadeeda oo dhinaca labadaa kala dooro weliba inan yar baa tee go'aan qaadashada ha ku degdegine tale haddaan ka bixiyana waxaa ila quman inaad aabbaha abibakar iyo hooyada aad la soo tashato markaabay caaisha tidhi ma ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jannada ayaan aabbaha iyo hooyaday ka talagelin may ka talagelin maaya bay ku tidhee ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aakhirada ayaan doortay maanta intay ka dambaysana adduunya dambe kugu hadal qaadi maaya bay ku tidhi markaa buu nebigu farxay calayhi salaatu wasalaam markaasay ku tidhi nebi allow sida aniga aad ii weyddiisay soo xaasaskaagana u weyddiin maysid markaa buu yidhi haa iyakana waa ku socdaa adaa kaa bilaabay waxay tidhi haddaba anigu mowqifkayga aan doortay adiga ha iiga sheegina iyakana weydii bay ku tidhi taladooda halkaa markaa maseer yar baa ku jira soo maa markaa buu nebigu intuu qoslay buu ku yidhi wallaahi hadday ayaku i weyddiiyaan ay igu yidhaahdaan caaisha ayay dooratay anna ka qarin maayo buu rasuulku yidhi yacni sida adiga wanaag iyo janno kuula rabaan iyakana ula rabaa janno weeyaan waana imtixaan arrintu waa ikhtibaar weeyaan oo la leeyahay ilaahay iyo rasuulkiisii iyo jannadoo dhinaca iyo adduunyadiiyo zinadeeda oo dhinaca kala doorta waa khiyaar cajiiba waa imtixaan weeyaan ikhtibaar markaa buu nebigu leeyahay caaisha hadday iyakuna ii weyddiiyaan ay igu yidhaahdaan caaisha ayay dooratay nebi allow way og yihiin inuu nebigu caaisha uu jeclaa u iyada ka soo bilaabayo aniguna ka qarin maaye wallahi waan u sheegi buu ka yidhi cishra saasuu nebigu dumarkiisa ula dhaqmaayey ghaswatu khaybar markii dagaalka lagu qaadee lagu duulay gabadhii ugu quruxda badnayd markaa ayay nebiga u dooreen asxaabtu u doorbideen safiyata bintu xuyey radia allaahu canha ummu almu'miniin bay yidhahdeen nebi allow tan adigaan kugu deeqnay qaada bay ku yidhahdeen way qurux badan tahee markaa buu nebigu yidhi wallahi waad ii garateen buu yidhi tii ugu qurux badnayd dadka waa hagaag caaishuu nebigu u yeedhay xafsa u yidhi caaisha iyo xafsa kaalaya gabadhana laysiiye dadkii la soo qafaashay baa layga soo dhex doortee caroos baan he ii soo diyaariyey buu yidhi ordoo ii diyaar garaya reerihiisa nebigu ma dhaqaaloo ku wada mise akhlaaq badii sheega yaa ma dhici karta waa waxaad innaga zamankeenna waa mustaxiil inuu ninku labadiisa dumar uu qabay uu ku yidhaahdo naa gabadh yar baa laysiyoon guursadee bal ii soo diyaariya way adag tahay soo maaha waxau nebi maxamed reerihiisa ku maamulaya waa akhlaaq weeyaan waa khuluq lacag ummadda laguma maamuli karo reere lacag laguma dhiqi karo reeraha waxaa lagu dhaqaa waa dhaqanka wanaagsan weeyaan lidaalika nebi maxamed sal alla alay slam maalu laclaa buu dhinac walba ahaa way qaadeen habeenkii bay u diyaariyeen salaaddii cishaay markay gaadhaa saxaabadu nebiga soo gelbiyeen markii aqalkii loo dhowaaday buu nebigu saxaabadii ku yidhi war dee reerkaygii baan u tegiye iga hadha buu ku yidhi markaas innakana maasha allah dee aroosyada zamankeennan ilaahay haynoo dembi dhaafa bas bal arooska nebi maxamed dhibyaridiisa eega caroosadiina labadana u diyaarinaysa xafsa iyo caaisha isagiina salaaddii cishaay markuu saxaabada soo tujiyey hareeraha ka soo mareen aqalka markuu u soo dhowaadayna iyakiibuu la kaftamo wuxuu ku yidhi war dee caroos baanee reerkaygii baan u tegiyey dee maxaad iga daba qabanaysaa niga hadha buu yidhi deedna markaasay qoslayna xishooda inay ka hadheen caaisha iyo xafsa ka soo baxay marka aqalkii markii nebiga maqlay inuu soo socdo markaasuu yidhi haye bal warrama maxaad aragteen caaishaa tidhi dee maxaan aragnay yahuudiyad baan aragnay oroda u teg bay ku yidhahdeen way qurux badnayd baa la yidhi way ka wada qurux badnayd marka weliba xafsaa hadalla adag ku sii hadashay markaa buu nebigu ka daba hadlo yidhi xafsa itaqi allaah ilaahay ka yaab ma cadhoon ma dagaalamin ma qaylyin bal siduu nebigu ula dhaqmay reerihiisa eeg wuxuu yidhi xafsa caaisha gabadha waa muslimad way islaamtay ilaahay ka baqa markaasay leeyihin waa yahuudiyadeeda u teg bay ku yidhahdeen
markaa uu nebigu u soo galay calayhi salaatu wasalaam maalmihii carooska ahaa ilaa maalintiina saxaabadu nebigu la joogaa dumarkaa markaa u yimaado markaa gabadha way u weheliyaan oo way u sheekeeyaan maalin maalmaha ka mida buu nebigu u soo galay safiya iyadoo ooyeysa markaa buu nebigu ku yidhi safiya maxaad la ooyeysaa ii sheeg waxay tidhi yaa rasuul allah dumarkaaga qaarkood dhib bay igu hayaan aniga waa teeyete caaisha iyo xafsa oo maxay leeyihiin dee waxay igu yidhahdeen mar walba yahuudiyad baa tahay dee markaa buu nebigu ku yidhi ayakuna maxay leeyihiin dee annaguna gabdha carab baan nahay carabiyaad baan nahay annagu adiguna yahuudiyad baa tahay markaa buu nebigu ku yidhi dee adaa ka nasab fiican haddii xagga nasabka la eege adiga aabbaha waa nebi nebi haaruun bay ku abtirsanaysay baa la yidhi aabbahaa waa nebi adeerkaa waa nebi ciise nebi muuse zawjkaagu waa nebi maxamed adaa ka laandheeraysan buu ka yidhi ee markay kuu yimaadaan iska celi saa ugu jawaab maalin dambuu nebigu yimid dee safiya bintu xuyay oo aad u faraxsan bal warran waxay tidhi maanta dumarkaagii taan ku dhigay waa la yaabay tidhi oo maxaad ku tidhi dee kelmadday igu odhan jireen bay iila yimaadeen yahuudiyad markaasaan ku idhi naa yahuudiyadda unbaad igu haysaane aniga aabbahay waa nebi haaruun calayhi salaam baan ku abtirsadaa adeerkayna waa nebiyullaahi muusa calayhi salaam waa kaliimullah odagayguna waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bal middiinna intaasoo nebi kulansatay halkaas soo dhigaan ku idhay tidhi sheegaan ku idhay tidhi markaasay afka qabsadeenoo way iga yaaceen bay tidhi maanta halkaa un dee ka wad buu nebigu ku yidhi saa dumarka iskaga celi yani xayaat alcishra balag nebigu siduu dumarkiisa u kala badbaadinayo eeg waan run waxuu nebigu ku hadlaayo qofka nasabkiisu wuxuu qiimo ku yeelanayaa inna akramakum cinda allaahi atqaakum haddii iyaka ay gabdho carbeed ay yihiin oo xafsana cumar u dhalay caa'ishana waa abubakar u dhalay adigana nebi haaruun baad ku abtirsataa adeerkaana waa nebi muuse waa kaliimullah haddii nebi maxameduu ni wada iyaka uu qabana dee adiguna nebi maxamed waa ku qabaa buu ka yidhi nebigu markaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagaa inoo qudwa markaa nebigeenna haddaan guul doonayno liibaan doonayno cizi doonayno sharaf doonayno waa inaan nebigeenna raacnaa hadba intay ummaddu dhaqankii nebi maxamed aan ka sii fogaanno waxaad ogaataa ilaahayna waa inaga fogaanayaayo ogow ghaswatu uxud ayaa duruus baa ayaa ku duuban duruus ibna qayim aljawsi raximahullah fii zaad almacaad buu kaga warramay inta masaa'il uu ka soo saaray sheekhaasi fii ghaswati uxud hadday axkaam tahay hadday cibar ay tahay hadday taariikh tahay hadday siiro tahay hadday hadyi tahay ma malayn karaysid jamaacuu nebigu soo qaaday jamaaco jabalurumah buurta la yidhaha buu nebigu jamaacaddaa uu dhigay waxa uu nebigu kula dardaarmuu ku yidhi haddii aad guulaysannood aragtaan iyo haddii kaleba ininku halkaa ii jooga buu rasuulku ku yidhi judhii u horraysaba muslimiintu way guulaysteen waa la jebiyey gaalladii khaniimadii baa la guranayaa jamaacaddii nebigu buurta uu dhigay ee xagga dhabarjebinta uu nebigu u dhigay inay ka ilaaliyaan way kala jabeen markiiba qola waxay yidhaahdeen way guulaysteen muslimiintiiyo waa kuwa khaniimadii guranayee ina dhaadhiciya amiirkii jamaacaddu wuxuu yidhi may war ha degdegine nebiga ha khilaafine amar nebi baan meesha ku joognaaye halkaa jooga may dagaalkii dhammaa guushii muslimiinta ay raacdeenna dhaadhiciya may way kala jabeen jamaaca way dhaadhacday oo khaniimadii bay ka qayb galeen inay muslimiinta la gurtaan laakiin jamaaca buurtii bay ku hadhay jeyshkii maaragtaane fardaha khaalid ibnulwaliid oo maalintaa aanan muslim aanan ahayn ciidankii uu watay ee fardahoolayda ayaa dhabarjebin intay xagga dambe ku soo sameeyeen jamaacaddii buurta ku hadhay amarka nebi maxamed ku sugnaatay ilaahay waxa uu ku deeqay inay noqdaan wada shuhado maxay noqdeen shahaadaa ilaahay wada siiyey jamaacaddii nebiga amarkiisa jebisayna dhaawacii iyo ka keliya ma soo gaadhine bal muslimiintii oo dhan maalintaa dhaawacu waa gaadhay 70 saxaabada nebi maxamed ka mid ah ku shahiiday oo nebiyullaahi moxamed
calayhi الsalaatu wasalaam baa maalintaa dhaawac la gaadhsiiyey sababtuna waa maxay waa jamaacaddaa buurta dul joogta iskhilaaftay weeyaan adduunye jacayl baa ilaahay ku sheegay meesha inuu yimiday cisyaan baa dhacay oo nebi maxamed amarkiisii haddii la jebiyey waxaad ogaataan gargaarkii waa rafacmaya lidaalika ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa odhan jiray laba nabadgelyaa ilaahay ummaddan siiyey labadaa nabadgelya mid ilaahay waa inaga qaatay waa nebigeenna moxamed calayhi الsalaatu wassalaam midna waa istikfaartii oo istikfaartii waa ummadda loo reebay wamaa kaana allaahu layucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allaahu mucadibahum wahum yastakfiruuna baa ilaahay yidhi intaad adigu ummaddaada dhex joogtana cadaabi mayna baa ilaahay yidhi inta ummaddaadu dembidhaaf ilaahay ay weyddiisanayaan ee ilaahay ay u soo noqonayaanna cadaabi mayna baa ilaahay yidhi marka amar nebi maxamed ka soo fulay oo jamaacadda qayb ka mida ay jebiyeen ayaa muslimiinta maalintaa jab ku soo gaadhay oo 70 nin oo saxaabadu ku shahiiday nebi maxamedna maalintaa la dhaawaco dhiiggiisa dhulka uu ku daatay xamso nebiga adeerkiiyana uu ku shahiiday ma ahayn dagaalku wax sahlan dagaalka uxud waxaa qisadda inoogu filan oon u soo qaatay haddii ummaddu ay nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam hadyigiisa dhaqankiisa sunnadiisa akhlaaqdiisa aan ka fogaanno waxaad ogaataan ilaahay baan ka fogaannay ogow وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين بل انت أحكام آية كجرت أوفر صدع وأطيعوا الله ورسوله إلهي أطيع بالليل ورسولك سأطيع ولا تنازعوا إنك دحذي نبا إلهي همر منا حق الله ممر ما حق وعديه ولا راعى حقه haddaad tanaasac mulkiga haddaad isku qabsataan iyo maamulka haddaad talada ummadda isku qabsataan kanaa sax iyo kanaa qalada haddaad isku qabsataan oo muslimiinta dhexdooda uu ka dhaco maram ku salaysan baatil oo xaq aanan ahayn hadduu dhexdooda uu ka dhaco fatafshaluu baa ilaahay waad fashilmaysaan fashal hadduu yimaadana maxaa ka dhacaya watadhaba riixukum quwaddiinni iyo midnimadiinni baa tegaysa baa ilaahay yidhi waa lagu soo celiyoo la yidhi haddana وأطيعوا الله ورسوله إلهي رسولك سأطيع بالقيودي إن كنتم مؤمنين هدي آتيه كو إيمان لبا إلهي يدي بركة النبي جينا محمد عليه الصلاة والسلام نور الشاء أمد أولي مدي بالله الرباين كضيانو حياة الإسلام هذا نور الإسلام كأذراعي ويدد وعد راعي حياة الحيوانية حياة الليلاد بركة shayga ugu muhiimsan nabigeena kaga daynayna waa maxay bay culimadu yiraahdeen waa qaabkii nabigeena ummadda uu risaalada u gaarsiinayay tabliiq ar-risala akbar mu'jiza waa taas sidee nabigu ummadda u tarbiyadeeyay sidee buu nabigu ummadda risaalada u gaarsiiyay kayfiyadda nabi maxamed oo ummadda risaalada ku gaarsiiyay كيفية دبي وقت جاي نقول ديران لكن النبي جينا محمد عليه الصلاة والسلام هنا كده ينو ونلشي سام برنو ونبتكينا برنو ونكده قنو ودين تا إلهي نسي نلشين أي كم وقته دال بلوب بهاي مركز دال كاس علماء كلية مها مسؤولية واحد سارن تاعي نبيقول دين تا إن أمد الله جارسيو دين لبرو حلك علماء كلية نبيقول مسارين مسلم كاستحيل كان نبيقول كوري جيو أوصاري بلغوا عني ولو آية بلغوا وأمر عني وتشريف يا تكريم ولو آية وتخفيف لقوا خفيفي لقوا فضيدي رسالتي ده إن شاء الله ده هذا إن ذلك الدين تأوض كعنه وهذه النبي جينا أن رعنون كده ينو ما هو النيوتين إن شاء الله إن شاء الله ده هذا إن شاء الله ده هذا سفي عنو تاجا قعنت الله ينقبله ده بيجينا الله هداف ساد نوسو دويسن الله نوسو دوي سايد كوا مساجد كني حافظ وحافظ ديني مقالة وأوض مقالة ديني
aniguna wadaad musaafir oo qariiba ma hiye waan iska ahay ma ogtahay dhulku waa dhulkeennii dadku waa dadkeennii dalku waa dalkeennii amnigana allah inoo adkeeyo wixii diinteenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna u danana madaxdeenna allah garansiiyo innakana insha allah dadaalka diinta aan guddoonno oo nimankiina ganacsatada ee suuqa jooga dee tijaaradaada haddaad wakhti ku bixin iyadu ma iswadi dukaan baan furtay wakhtina ku bixin maayo ha ii xidhnaado intay badeecaddii oo dhan ay dhex taallo ma iswadaya isagu diintan tijaarad weeyaan ilaahayna siiyo badeecad ilaahay wuxuuna siiyey caalamkao dhan u baahan yahay marka badeecaddaas inaan wakhti ku bixinaan u baahannahay markaas habeenka jimcahana markaska ka soo qayb gala in sha allahna sheekha inoo khatimi doona in sha allah allah ina barakeeyo